يرادا أبو بكر عبد الله يوسف وحي أن كان لها أنت بدل مزينور بكال الرمها ما أنت مسكوكها كان جراجة وضيافاف وضدك هذه مشان كردن أرنت مسكوكها كانت محلية الشمبر هذين قد وحي كعياجر أرنت مسكوكها كانت محاوي أننا اللباتن إيه السجال سنة يعني هل كان قلتي ونقر صارنا وهل كان آن دقرين دباتين فرب لنا وهذا آن كان كريم لسوكون كريم بانقول عين لباتن إيه السجال كاسنا بيدي ينون لهن نبكي نجاري مقدو بانو بهنا يا مقدو بيسانهلنا الحمد لله رب العالمين أرنك إيد هذا أنت أن هيني إني أمان إلهي سبحانه وتعالى يا نسك النص وصاري بنجي أدون كانوا بلنقاده إني بقالة وكبريه بمشكلة نجاري وكان فافي يددد haddii arrintii aan helne arrintaa waan sugayno waa arrin muddada dheer aan ka soo shaqaynayno inaan helno aan sugayno arrinka baan soo kicisa maxaa way arrinkii asaga ahaa dadyow shakhsiyo inay burburiyaan rabaan oo ka hadleen yaa warkooda maqalne arrinkaasaa maan isku kaa keene wixii aan ka qabno inaan ka sheegno maxaa warka codka la soo geliyo oo la soo duwo la soo geliyo dadkii faafi inay arrintaas aan lagala tashanno waxba ay ku ogeen been baa laga sheegataa dadkii faafi arrintaa way ogyihiin muddo dheer baan shirarkaas yaan ku soo halgelnay oon ka soo hadalnay on intaas oo shir wax la soo koob karo aan ahayn annaga iyo macal imbiga annaga faafi imbigeeda iyo dadweynadeeda waqti dheer baan arrintaas yaan shir badan uga soo halgelnay oon codsiyaal badan deedsanay wixii asaga hayay sheegnaa maanta yaa miis noo soo fulan oo la ballan qaaday maanta imaade arrinka haddii la reefaafriga inta kan been baa laga sheegay imbiga annaga uu reefaafina way ugu weyn arrinta arrin waqti dheer soo shaqaynayna ahayd qofkii isku dao inuu arrinta argaleediyo mar aan ogolaanayno ma jiro arrinka iyo arrin waqti dheer laga soo shaqeeyo laga soo halgamo oo waqti lagu bixiyay maan qofkii hurdo ka soo baraarugo hurdadaadu ku noqon leenahay hurdadaadu ku noqo yaan leenahay arrinta waqti waa lagu bixiyay fikir baa lagu bixiyay halgan baa ku soo baxay imbiga iyo dadkiisa isku kooban baa halgan badan ku soo bixiyeen qofkii intaa ka maqna oo maanta rabo inuu ka dhaxalo aniga maan in aan ka galo aan helo hadaan waayno waan dhoogay ma ogolaanayno ma ogolaanayno arrinta maxaan sheegaynaa dibida walaashaanaga arrinka aad ku hadashay waad ku qaldan tahay faafi muu wada tirana faafi way ogtahay oo shirarkan dhowr sano ka horan yaan arrintaa iidayaan barnaamijka aan kasoo hadlayno inaan helno magdhow wax shalay iyo maan bilaabatay maaha waa arrin maan dadka faafi ku nool saddex ka meel laba meel ay shir ay ka qayb gelin aansan jirin waan ogsoonahay arrintaa maxaan ku leenahay walaalay arrinkaa iyada meelkaaga ma bannaano ka har arrintaa iyada bannaanka istaag saddex calaama yaan hadalkaada mid u aragna anaga saddex calaama hadalka aad ku hadashay markaan sigsigayno miisaanne saddex calaamaan mid u aragna qodob wan dhaqaalahaas imaaday World Bank annaga haddaan reefaafinahay hay'ad faafi ay leedahay halkan yaa ka samaysan oo faa'iida la yiraahdo wixii aan helno faa'iida in la soo mariyo annaga samaysanna waa idig annaga aan oodano inaad faa'iida waa bari shaqaale ka oo shaqadeen laga tiray macaaril ku tooyna waxa la soo waan ku malayna qodobka koowaad ka waan ku malayna qodobka labaad imbiga faafi inaad macaaril ku too asaga aad beegayna soo waan ku aragna oo dharaan kuma leeyahay cadad oo leedahay lacag una ay leeyihiin madrasooyin inaad macaaril asaga lagu soo adeejiyo sababta oo hal sano waan ku aragna qodobka saddexaad waxaan ku aragna in la ka gasho dhaqaalahaas aadna ka booqtana daanaso in kaaga ma banaano waxa kaliya ku banaan waa walaalnimo inaad wax ku doonato walaalnimana cid ku diidan malaha maamulkaas asaga walaalkaada gacan ku haya walaalnimo wax oo la doono haddii waxaad ka heshaan alxamdulillah dad wax ka soo rabbil caalamiin laakiin waan arqaladay waa murburin maraan ka ogolaanayno male arrinkaas aan ku sheegaynaa tan kale faa'iida annaga samaysana waa hay'ad mushkilad gaari inaan oo korno oo samaysano ay reefaafi samaysteen rajal ay samaysteen annaga ku kalsoon waxa la wixii aan helno faa'iida noo soo marana waan ku kalsoonahay oo diyaar baan u nahay ka waa qodobka labaad faa'iida maxamed cabdishaalan ka ilaalin cid tiraado maxamed cabdishaalan faa'iida aabeeda waa aabeeyo soo asaasay proposal kaman faa'iida intay uga soo kacday CDO ay maanta ku gaartay inay walban dhaqaale ka qaadato ninka qoray maxamed cabdishaalan meel looga saar karo mala walaalkaan xushmo cabdikariim aan ku maadinayna hadduu talada faa'iida maxamed cabdishaalan ku soo dhaxdaray arrintaas bay gaarajira aad ay ku riyaaqeen aad aan ugu faraxsanahay kama naxsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh